يعني لغة الصومالي هو لغة مسلم لغة تركي هو لغة مسلم واحد marka barashadeeda bixad daatiha bay muhiim tahay ninkii adduunyo rabana waa dal soo kacayo oo يعني wax badan runtii wax weeye dadka thaqaafadiisa iyo luqadiisa bartay mustaqbal fiican oo adduunyo ay leeyihiin laana kuwii China aadayba luqad China baranayaan Sooma marka luqad China haduu baranayo luqad Turkiga inuu bartaa ka fiican bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah kelimadeedii horaan ku daray wadka waxbarashadooda waa maalgashiga ugu fiican wax la maalgashado bini aadamka ugu muhiimsan korinta jirkooda waxa ka muhiimsan korinta aqligooda in aqoon iyo cilmi loo yeelo aqoon marka la yiraahdo midda diiniga bay ka bilaabataa midda adduunyada naaficaana way la socotaa wixii culumta adduunyada naafica marka caruurtii inaan kula dadaalo waxbarashada guud ahaan meelan joognaba diinta dad ku takhasus waa loo baahan yahay culimo diinta xambaarto kala dhaxasha oo umada u haysa wixii diin ay uga baahan tahay dhanka kalena waxa loo baahan yahay adduunyadii iyo horumarinteedii camirideedii ilaahay tabaaraka wa tacaala bini aadamka wuxuu ugu talagalay inuu dhulka camiro inuu horumariyo gaar ahaan oo idinka arkayo hadda adduunkii waxa la isku guumeysanayaa la isku haystaa oo lagu kala xoog badan yahay waa waxbarashada iyo wixii ka dhashay teknolojiyadeeda aqoonta maadiga haddii midda diiniga aan weynana waa lumayna midda adduunyada haddaan weynana waa dib dhacayna labadiiba marka waxaan u baahanahay inaynu wada keeno ilmihiina kula dadaalo insha allahu tacaala iskuullada labada maadaba dhigaya diinigana dhigaya maadooyinkii kale ee casriga ah ama secularka dhigaya meelo badan bay ka hana qaadeen oo aad baa runtii looga faa'iideystay Kenya oo meeshan ka imida runtii waxay noqotay tajribo aad iyo aad u najaxday oo ardadii ka soo qalin jabisay hadii dhanka maadiga iyo culumta maadiga loo dirana way kaga fiican yihiin qeyrkood hadii dhankii diiniga loo diro markay soo baxaan jaamacad islaamiga ay aadaana ayadana midho fiican bay ka keenayaan waliba waxay la dheerihiin xirtii iyo dadkii xalaqaadka wax ku baran jiray waa dad fahansan noloshii fahansan luqadaheedii fahansan meelo badan wax gaarsiin karo waay ragii ka soo baxay iskuulada kadibna diinta ku takhasusay oo bartay marka dhinacay noqotaba maanta waxbarasho waa u baahanahay anaga iskuulaan gacanta ku haynaa iskuulo kale to waxa jira aad iyo aad loo runtii wax weeye ugu yaraan carruurtu waxay kaga badbaadayaan fasaadkii yaalay iskuulada publica ama iskuulada maadiga kaliya akhlaaqdii baa loo ilaalinayaa mabaadidii diinta la barayaa ilmi wuxuu noqonayaa ilmo diintiisa ka warhayo ugu yaraan diintiisa ka warhayo hadhow ka badbaadaya ma aqeedadii in laga fasaadiyo ka badbaadaya akhlaaqdii in laga haleeyo ilmuhu hadduu secondary ka baxo oo akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan kaga baxo mustaqbal buu leeyahay inta badan markaas waxa weeye wuxuu foodo gelinayaa 18-20 jir inta ka horeysa hadii la xifdiyo la ilaaliyo waxay u badan tahay wixii inta ka dambeeya inuu muxuu ahaayay marka goobtan waxbarashada iyo iskuulkan halaga faa'iideysto wadankanna si guud halaga faa'iideysto wadankan waa wadan waxbarasho taalo waay barasha taala aqoon baa taala ilbaxnimadii baa taala iyadii waliba la islaamiyeeyay wax badan laga hagaajiyay baa taala laga yaabo dadka qaar kood inay luqadda turkiga iyo barashadeedii caqabad u arkaan laakiin waxaan dhihi lahaa luqadda barashadeeda lafteeda muhiim ah luqadda turkigu waxay ka mid tahay luqadka
مسلمين تليهم بكمتها لأن اللقطة أبتر كذو وضدك اللقطة كوها الله وحي الرميسيه يعني اللقطة الصومالي هو لغة مسلم اللقطة التركي هو لغة مسلم واحد مركب برشاد هذا بحد ذاتها المهم تاعي ننكي الدنيا ربنا وادل صوك عيو يعني وحبض الرنتي وحوي ضدك ثقافة دي اللغة دي صبرتها المستقبل في عنو الدنيا إليه هذين قادوا بدح توكتان أنا عروض النادي إنتان أفريقيا كأنه يجوا جامعة ما يلبضن كهلي كربان تركيا كأنها ويلبى هذا أنا محاها إيدي جانية جامعة تركيا مركا شرط واحد يقول إن هلا سنين وبرتو جامعة كهرين واللغة برتو يعني لن يروى بران كل اللغة لأن كوي تشينا هذا باللغة تشينا برانية صوما مركا اللغة تشينا هذو برانية اللغة تركيا وبرتاك فيها ساس تلاديد المها محوها هاي أنك جود هامبا فرصة ده هلقى فائدة فرشة هلقى فائدة تن سيجونيا أي علماء ديني يو محوها خيارتك عنك وهيانا أيضا هذا وحوي كم سيشرتو فرص فربضن بينو كهلينا كارهان سانت المامي بكلمة يروكوت المامي جدي جينا بدن وحلاقي كريسة علمية ولحظة وحمريان إن تريركو جورا ونيروبي كدعو marka iskuulada inta badan luqadka muxuu ahaa in lagu barayo luqadkaasi muxuu ahaa adduunka laga wada hadlo way fursad fiican hadii dhinaca u guurtaba wada heli macna kullu meesha aadaba ilmihi waa la socon kara waxbarashadii meesha ka jirtay marka aan ka faa'iideysano insha Allah ta'ala innagana waxay inoo tahay faa'iido mashaayikhdii iyo ragii akhyaartii bilowday mashruucana runtii مشروع أي باللابين إن لجو جرب استاجاي ومدي واحترنا ويوتهاي أيجين هذا النجح يوحيوتهاي جول بيوتهرونتي مدة أساس كأنه قان كرتنا وحوي ورجينا إن شاء الله تعالى إنه سند سكول إيو وعبر الشكلية النقانينا إنه النقضة سنتر أي بالشدو يمحو هاي مركز أي مدة سوق تبعته ودقوا حينو عميشان تجنبه إنه دان يسوور صنّا محو هاي كان عسير كسم يسنو مركز ضمن حافظة ولا وريقنا مركز هالكن إسلي دي لوات كده إن شاء الله تعالى إسلي وحيد نلا يده محو هاي نكمل ها مدح ودك أيام مر عبد إسلي لو كعي ولا يدي لعقت أد كانتين لعقت أنا كردستين حافظة وحد كانتين ورعد بدأت ديو محو هاي واللون دري بلاي الآخر ayaa wuxuu yiri soo meel xaflada ka hadlaa wuxuu yiri markii hore waxaana lagu celin jiray buu meesha la yiraahdo Northeastern gobolka waqooyi bari Soomaaliya degto marka xoog baan ku soo dhaafnay oo Islii baan soo degnay Islii markaan qabsanay wuxuu yiri waxaan akhrisanay aayatul kursi hadda magaalada centerkeedaan maraynaa buu dhanka kale aan uga sii baxaynaa buu hadda marka waxna celin karo ilaahay abuurtay ma jiro waad wadaan akhri umadu markay is urursato sax meel walba hada marka tagto Mareykanka sidoo kale Yurub marka tagto culimadii ka timid baa joogta xaafad baa la wada dagayaa ganacsi baa laga sameeynaya waxeenii baynu keensanaynaa haday doonto reerkii iyo waxay muxuu ahay waxoogaageenii yaryaraay qurjaafka iska yimaada isaga laftiisu mushkil ma leh yaani inagu ila la socda kaas inagu ila la socda isaga laftiisu iska yimaada marka eriyadan muxuu ahay markasku ku yaalo waa ku talin lahaa runtii inaad u soo badataan guriga kiraaba degantihiin hada xataa ka iibsanaysaan isoo dhawaanshahaasi wax weyn buu runtii sameynaya ilaa badda tagto South Africa Soomaalida magaalooyinka waaweyn ka degan yihiin Johannesburg iyo Cape Town iyo hal xaafad bay degan masaajid way ka sameysteen iskuulay ka sameysteen quraankii bay ka hirgeliyeen waxay keeneen xataa bulshada lafteeda wax badan oo ka maqan baad keeni kartaan oo soo kordhin kartaan saas daraadeed war badan muxuu ahay maxay dhigi jireen warku waa iska muxuu ahay waa iska bataay warka murtidiisu wax weeyaan aan isku duubano mashruucan iyo mashaariicda la midana insha Allah ta'ala ka faa'iideysano aan insha Allah ta'ala is aruursanno hadii Allah idmo jazakumullahu khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh